siyaasadda isku hayaan oo gobollada waaweyn ay ka mid yihiin Puntland iyo Jubbaland iyo siyaasiyiinta midowga siyaasiyiinta oo iyaguna gaar ah oo meel ku shirsanaa iyo dad shakhsiyaad ah oo Soomaaliya arrimaheeda daneeyo oo siyaasiyiin oo isagana ka soo horjeeday xaaladdu saa ma dhicin waxaad moodaa inuu shirku ku soo dhammaan doono quus iyo shimbirayo heesa xaaladuna wax ku fiican tahay oo aan weli dadka shacabka Soomaaliyeed ay ku faraxsan yihiin in weli xilligii aan la gaarin madaxweynuhu xilligii ugu dambeeyay ama xilligii la doortay uusan dhaafinin oo aan loogu yeeri doonin xilli hadda aad u dhow madaxweynihii hore oo dhowr bilood u dhiman tahay oo weli uu haysto fursad uu isugu yeero dadka Soomaaliyeed kuwa ka aragtida duwan oo arrimaha siyaasadda ku khilaafsan marka waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed u soo gudbiyo klibkan ku tuso dhowr oday oo raggii loo yeeray kamid ah oo meesha ka hadlay iyo waxa ay yiraahdeen waxa ugu horeeya ninkan odaga ah daawo doontaan kulligood magacyadooda saddexana kor ka taqaanaa fiiri hadday yihiin annaga madaxweyneyaal hore iyo ra'iisul wasaareyaal hore oo meeshan fadhiyo soo ma sawa adiga cali geedun baan arkayna cali geedun baad arkaysa ayo madaxweyne hore ayo adigoo Hirshabelle madaxweyne ka soo noqday 10 sano ka hor haye meeqa aqoon-yahan oo professor meesha fadhisa sawa adiga waxa waaye marka niman shakhsiyaad ah fariinna waa loo faray waxaana la yiri waxa haysaan fagaaraha soo dhiga wax nin luuq inta galo wuxuu rabo soo sheegay يعني كاسو أنت وركيس مجرى وقت فقارة إنه كهدلان أو يرهدان وحنا نكربنا وحنا كديدنا وحل الربع. مدحنا على عصب الدورد وسدح سنة شقين يكبدن موحليدهن وحن دورد كسحنا قلد أو يسمى سدح حسن مو بجران. دورد وفي عنها وادر. ما أنت دماء. دولد وداداش أديك وحمان تبى رادين وح في عن راد وحنا دولد اللي هن كجوك سمجرة أو كسحي أديك وحايشك تا وح في عنه دولد قبطي مركز كل شيء وح حنو أي قبطي وح حنو شيء قبطي هذه إجرام وح حنو أي قبطي ما بقوليبه وح في عن لي قبطي دولد وح في عن قبطي قابس مجرى يا قابس مجرى waxay ku xiran tahay adiga waxay ku xiran tahay maxaa kuwa idaacada kuwa dadka niyad jibinaya ku xiran tahay gaabiska la sheegay ma jiraan isbitaalka amoor taqaana hadday yihiin annaga madaxweyneyaal hore iyo ra'iisul wasaareyaal hore meeshan fadhiyo soo ma kulligood magacyadooda saddexana kor ka kulligood magacyadooda saddexana kor ka taqaana ma ogola wariyuhu inuu xataa su'aal weydiiyo ma ogola inuu qaab saxa oo shacabka Soomaaliyeed waxa ilaahay sugahayaan dawladda ka rabaan dadka soo sheega ma ogola wuxuu ku jiraa dagaal iyo isdifaac wuxuu ku guul daraystay hadda ka hor 10 sano ka hor ku dhawaad waxa laga qaaday Hirshabelle inuu oday noqdo oo hogaamiyo marka haddana oo jeeda suwari helo dir dagaalkaas ku jira halkaas ay sheekadu maraysaa marka waxa idin ku xigi doonaa inta doonaa wasiir Cali Xoosh oo asagana dadka wax laga weydiiyay ku jiray meeshaas بيهين كذا يهين واحد ما جرى شركة بفضية شركة محافظ يا مؤد محافظ للشرعي محل في الكلام محافظ للشرعي محافظ للشرعي محل في الكلام إنك سبحان محافظ محافظ للشرعي وح أرتيو لسكوي درسنا يو إسديدن أو الربع النتيجة إدارة ماشي مجالان هذا هرت وركاء وقل قلوعية هيو سؤال سؤال وحوي الدنيا سواء كذابك متي كودة مركا هرت ورا كذابك نار قطبة في عنو سؤال شاذ صح نقطة وزير علي حوش wuxuu caynahayaa oo wax ka sheegayaa wariyihii su'aasha weydiinayay way arkayseen madaxweynihii hore ka horeeyay Cosable asagoo sidoo kale wariyihii buu la dagaalamaya dad marka xanaaqsan oo aan ogolayn fakar ka duwan in la sheego ayaa shirka lagu casumay dadkii madaxweynaha ka soo horjeeday oo siyaasadda isku hayeen oo arrimaha dastuurka isku hayeen oo madax xasan sheekh maxamed bedelay oo arrimaha doorashooyinka isku hayeen oo qaabka loola xisaabtamay loo dhaqmahayo dowlad goboleedyada oo qaarra hoggaanka loo sii daayay oo ilaa hadda aysan doorasho qabsan qaarra inta doorasho qabsadeen la ciideeyay qaarna iyada lagu kicinahayo dadkii ay ku kala aragtida waanaayeen looma yeerin lana dhegaysan maayo qofkii hadlana waxaad moodaa ninka siyaasiga oo shirkaa fadhiya inuu yahay nin xanaaqsan وحتى دقيسن كرين يقول دقيس صعب الصومالية ربطان كلهم كشك إسكت عفية وريها سؤال ويدين يا نوع كسن كرينين مركا قصع سؤال شاطر بس كوا كلام والله في الهيا إنه يمادان
oo shirka ka soo qayb galaan marka ninkii ka maqan ma bedelaysa waxaa leeyahay ururada siyaasadeed ee ay guddiga doorashooyinka diiwaan geliyeen ayaa fadhiya meesha oo awalka horeba la ogaa inay dowladda muxaafid u yihiin oo aysan wax mucaarada guusha fadhinaan maya ururadan xisbiyo weeye horta iyagu muxuu ahaa puntland bay iyo soomaali bayna u fadhiyaan marka muxaafid bay yihiin iyo kiday yihiin iyo waxaas ma jireen shirki bay fadhiyaan shirka muxaafid iyo mu'aad bay muxaafid la shiraya maxaa laga fili karaa muxaafid la shiraya muxaafid la shiraya maxaa laga fili karaa inay subxaan muxaafid unbaa muxaafid la shiraya marka wasiir cali xoosh wuxuu qancin la yahay wariye Soomaaliyeed oo raba xaqiiqda inuu weydiiyo faqad wuxuu rabaa marka dad dhan buu matalaa deegaan dhan buu ka soo jeedaa wasiirka arrimaha gudaha oo Soomaaliya oo dhan weeye wuxuu caynahayaa oo aflagaadeynaya oo la dagaalamaya wariye weydiiyey su'aal waarid ah oo inuu ka jawaabo mudan ayuu la dirirahayaa dadka marka isugu yimid meeshaas marka runta la sheego dad Soomaali wax ka sugayso ama isbedel ku imaan karo ama madaxweyne sixi kara ama waxyaalo la isku haystay oo waaweynaa kamid ah keeni kara ma ahan waa dad wada xanaaqsan oo bateri la soo galiyay oo madaxweynuhu soo wada dharbaaxay oo moodid in hal jid la marsiiyey kilibku waa sii socon doonaa biri waa jamce kilibkan ugu talagalay oo aan u bixinay akhriska jamcaha ama soo jeedinta jamcaha biri buu jiri doonaa waxaad kala socon doontaan Somali Pacific Media kan waxaan ku eegaynay rabitaanka Soomaaliya tuso erayada meeshaas laga yiri iyo dadkii loo yeeray kilibkuna waa gaaban yahay biri baan sii dheerayn doonaa mid tafsiran soo deyn doona haddii Ilaahay idmo intaasaan ku soo koobaynaa wassalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh